بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. وبرنامج كين ديارة تجور وناكسن. ما أنتوا عكال لنا قانون كأسرة دولة عثمانية دولة قدام بس المسلمين تا سيد بلشة وإلى لنجرتي سيد جورك جورك لأن حياة المسلمين تمركي هذا الدولة الآن تنقدين عادوا جميسي كانوا أصور رأي بربرك حوج وكسو جار وحكم ده محاربة الأسرة المسلمة أما تفكيك الأسرة المسلمة إلا بربرية كويس كمسلم كا سي أمد مسلم كا جيرش أجابا بآن جيرش أجابا هو فعلا يكون جولستين فعلا يكون جولستين ومركا محيه وبطة دلاقي وبطة أفريقي وبطة محيه تضيع الماء بطان ضيع المرأة حوج صارن مركا عثمانيين تلح قرن الإسلام كترين أي بنود marka dawladda ka tirsaneed jirta oo macna qaanuun ama ahwaal shakhsi wax loo yaqaano arimaha qoyska waxyaabaha ay ka qaateen ama islaamka marka sida dawladda u saameyn jirtay sida bulshada muslimka loo ilaaliyo qofka muddada qofka uu guursanayo guurka ama bakirka ma fiican qofka dhaqso inuu guursado ma fiican mise inuu guurka daahiyo dhaqso inuu guursado fiican bila kalaam laakiin guurku waqti ma laha guurku waqti ma qofka waqti wara uu guursan karaa لكن يا في عندي له زواج كمبكر كافي عن سن مركا تبدأ مدة الزواج الاختياري سن 18 قفك وجور كسر خيار إنه وجور سدل الهواء دولة وحدي جرتي سدير يتمن إلى عشان إلى وطن أنت قول حيسه قفك إنه جور سدل قفك إنه جور سدل هذا شان لا تنجار إلا هو قصبه دولة إنه جور سدل هذا جور سدل وين ولا حرجر قفك أنا يرى هذا زينة أوفافين si zinada u faafin qasab waxa ahayd qofka inuu ku guursado 18 ilaa 25 inta u dhaxayso haduu guursan waayana in la xiro qofkaas si muxaarabada looga ilaaliyo in xaraan iyo zina ay imaado marka maxay ahayd qofkaas marka waa loo diiday haduu xanuunsan yahay marka midlan qof xanuunsan yahay oo cilada xanuunka laga daaweyn karo ama safiyo maskaxda looga jiro uu yahay markaas kale cudurdaar ayuu leeyahay oo qofkaas marka maxay ahayd caafimaad aan hadii uusan guursan karin ama qof maskaxda looga jiro uu yahay safiha uu yahay ama qof macaaqood dhiman uu yahay marka wax cudurdaar oo guurka marka qofkaas mas'uuliyad ma qaadi karo marka taas marka waxa la dhigi jiray marka haduu marka asaga uu awoodo waqtigaas uu guurka awoodo dhaqaale uu ku guursado uu haysan dawladda way ka jirtay dhul beereed hanti waxba la siin jiray qofka la siin jiray marka hadii marka maxay idan tana shakhs aan zawaaj bacda 5 bila udrin sharci yuqad anhu bil quwwa ruwa dakhlihi sawa dhaqaalaha soo saarna qayba laga qaadi jiray mulkihi ama hantidiisa ama ganacsadu leeyahay ama warshad uu leeyahay ama maxay ahayd wixii maal uu haysta qayba laga qaadi jiray masaakiinta la siin jiray si qofkaas uu guursado ama waa la xiri jiray هذا كل من لم يتزوج 25 لا يقبل بوظيفة wax shaqo oo dawladda xageedana lama siin jirin qofkaas haduu shalad intuu gaaro oo guurka diido inuu guursado u diido shaqada dawladda lama siin jirin looma ogoleen iyadoo laga cararayo inay xaraan iyo maxay ahayd faaxisho ay imaado marka fursada shaqadana lama siin jirin meelna looma dhiibi jirin qofkaas meel shaqaale mas'uul kama noqon jirin qofka haduu weynaado 50 sano uu gaaro oo hal reer leeyahay مثلا كان متزوجا بامرأة واحدة haddana dhaqaale ahaan maadiyan way saxiyan oo awoodo inuu reer kala sameesto ayaa loo ogolaan jiray dawladda marka inuu qofkaas 50 sano gaaro uu qoyska weyn ay u koraan oo qoyska weyn kala dareeraan ayadana waxa loo xijay caafimaadkiisa uu fiican yahay qofkaas reer kale inuu sameeyo yaa marka lagu amri jiray haduu ka cudur daarto u yiraahdo ana hadda reer labaad ma sameyn karo ama wadaalana u yiraahdo ama mas'uuliyadda qaadiyaar uma ihi dhaqaalaha dawladda ka qaadi jirtay oo masaakiinta iyo agoonta على كفالقات إنه قف مساكين كفالة قاده أما أقون كفالة قاده يا الأمر جري سيدو هاد بوحو أول سيدو هاد دقاليه سوية هاي تاسنا قانون كدولة دي كقرنات قف في جورسس ديل طبعا إلى شان إلى باتن أو فقير من يتزوج في سن 18 إلى 25 وكان فقيرا لا يملك شيئا يقضى له من أرض الحكومة 150 إلى 300 دون مجانا 900 متر دول 900 متر oo dawladda leedahay yaa la dhijir dhulkaas beero markuu qofku guursado 18 oo dan yar uu yahay faqiir uu yahay dhul beereed la siin jiray oo dhaqaale ku soo saarto oo ku noolaada ayaa la siin jiray إذا كان من أرباب المصانع أو المتاجر هدو yahay qof warshad leh ama ganacsi weyn leh ra'su maalkiisa waxa iyadana waxa laga qaadi jiray 100 جنيه على 3 سنوات مقابل 3 سنة soo socoto
yaa laga qaadi jiray markaa macnaha dadka dhaqaalaha ladan dhaqaalaha sida dowladda la isugu dheelitirayo dadka danyarta iyo dadka dhaqaalaha haysto waa kala labada waa la isku maamuli jiray man yatazawaj qabla 25 walaysa ladayhi akhun rashid yaqdumu abawayhi yucfaa min at-tajniin qofkii markaas guursado walaal kaleentana qof kale walaalaho garab istaaga aan haysanin oo waalidka kaligiis haaya asagana reer u leeyahay labadiisi waalidna wuu haayaa qofkaas inuu ciidanka soo galo looma ogolaan jirin waalidka hay ayaa la dhihi jiray waalidka hay iyo asagana la dhihi jiray macnaha jeeshka inuu soo galo looma ogolaan maadaama labadiisi waalid qof mas'uul aysan haysanin sidoo kale gabadha hadday guursato walaal garab taagan uusan haysan u istaaga walaalaheed ayadana yucfaa zawjuha min at-tajniin ayadana hadday guursato labadeedi waalid qof daryeelo aysan haysanin ninkeeda ciidanka inuu galo waa laga cafin jiray looma maxay heeto laguma kalifi jirin sidaa dareen maxay heeto maadaama waalidka uu meesha joogo kullu shakhsin marka waalidka marka ilmo badan uu dhalay ilmaha qaar ahayna qaarna ciidanka galaan qaar dawladda galayaan qaar shaqooyin kale aadayaan laakiin marka qofkii hal qof uu yahay waalidkiisna asaga ka tagi karin qofkaas oo kale mas'uuliyadda waaweyn looma dhiibi jirin ciidankana looma ogolaan jirin taasna idan waxay ahayd qaabkii u maxay ahayd bulshada la isku maxay ahayd kullu shakhsin تزوج قبل 25 ورزق بثلاث أطفال يتم تعليمهم مجانا في مدارس الحكومة المحيطة قفكي guursado 25 sano ka hor saddex cunug waxbarashada firiya looga dhigi jiray oo carruurtii saddex markay gaaraan ay kor u sii bataan saddex qofood waa laga cafin jiray tacliintana waxay qaabka anaga isticmaalna Cuthmaaniyiinta waqtigoodii qaabka anaga isticmaali jirnay nidaamul xalaqaadi ahaa jirtay oo qofka maxay ahayd inuu u barto علومta sharciga quraanka uu barto markuu quraanka barto culumul aala luqada inuu barto naxwihii iyo sarfigii iyo balaaqadii iyo carabigii uu barto kadib wadana tafsiirkii uu barto kadib mutuuntii cilmiga uu barto qiraa'aadkii fiqh ilaa shan toos qof ila lafsan karay oo majaalka cilmiga ku dhex jiro marka qofkaas marka waxa laga cafin jiray qarashka madrasada saddex cunug markii carruurtu saddex kor u dhaafaan yaani dawladdu way ka bi jirtay وإذا كان أكثرهم يتم تعليمه ثلاثة مجانا سدح ويصرف لكل واحد من الباقين 10 جنيهات انت كلا انت وكورنا ان الدوله ilmaha lacag lagu siin jiray waa hada systemka gaalada isticmaalaan hooyada markay ilmo dhasho in caruurteeda ay badan yihiin dawladda lacag ay siinaysaa Umar bin Khadaab waa bilaabay ilaa ilmaha marka 13 ilaa 4 ay ka soo gaaraan ka soo qaangaarayaan وإذا كانت امرأة لديها 4 ذكور فساعدا تمنح إعانة قدرها 20 جنيه هذه ilmaha wiilal yihiin hooyada wiilasha haysato 20 juniha la siin jiray sababta wiilasha mas'uuliyad markay weynaadaan maxay ahayd shaqadii waalidka mas'uuliyadda laga rabaa ee marka hooyada wiilasha haystana si gaar ah loo kabi jiray kullu daalibin yashtaqilu bi talab al-ilm qofka cilmiga ku tafarruqo oo cilmiga bas u go'o qofkaas asagana si loo dhaqmi jiray fi daakhil aw al-kharij يؤجل جبره على الزواج إلى يتم دراسته marka qofkii tacliin far marka caalim weyn inuu noqdo rabaa sheekh weyn inuu noqdo rabaa mufti weyn inuu noqdo rabaa qaadi weyn laga dhigaa rabaa qof dawladda ku xisaabtamaysa qofkaas oo kale inta guurkiisa dib loo dhigi jiray asagana mushaar la siin ayaa la siin jiray oo marka intuu tacliinta ka dhameysanayo macnaha pocket money amal oo kale inta la siin jiray man yadaru ila safar wal iqamati fil kharij li bid'a sinin qofkii safar ay ku kaleefto danta banaanka inuu baxo meel aado لأي سبب وجب عليه استحاب زوجته أو تقديمه عندما عذر مانع من أخذ زوجته معه قفك سفر كيسو بداية حاسكيس إنه راعد أوصل كتجين وقت عمر محي أهد صدح بيرد أوصل كم غنان كنا قفك ركيزة مركا أنا أيضا أمر نقصين جري إنه سرير كيس كتجين كنا راعده وإن كان قادرا على الزواج في البلد الآخر هذا بلد كلا تجنا ورير كلا جورسن كرنا أيضا ولا أقول أنجله ثم يتوجب عليه بعد العودة أن يجمع زوجتيه في مكان واحد hadduu safar uu soo dheeraana cabaar ku soo maqnaanayo 2 sano 3 sano ku soo maqnaanayo waxa loo ogolaan jiray magaaladaas inuu reer kale ku sameesto kadibna labadiisa reer uu hal meel isugu keeno oo markaas uu isku maamulo marka taas marka waxa waxyaabaha laga qaadanaa waxa waaye sida muslimiinta xuquuqul insaan waxa loo yaqaan xuquuqul insaan ama himaayat maxay ijtimaac ilaalinta bulshada muslimiinta inay marka bulshada muslimka marka ma lahayn canuusa qof guurka iska dhaafay guumeys qof guurka canuusa gabar weynaato oo wax guursada weysay ama nin iska weynaado oo guursanin canuus ma jirin muslimiintu ma aysan lahayn sidoo kale ma aysan lahayn taxarushul jinsi
kufsiga iyo maxay iyo zinada inay ku dhex faafto oo maxay gabdhaha dariiqada lagu kufsado eedan meesha nadiif ah zawaajul curfi wal caaqaat غير waxyaabaha maxay gabdhaha jirkooda ka ganacsaday kulli waxaas oo dhan albaabkaas uu ka xirnaa muslimiintu uu ka xirnaa marka ummadda marka waxay muslimiin istiqraar nafsi qofka inuu noloshiisa istiqraar tahay oo qof dhalinyarada ay kala maaleysan yihiin fi waqti munaasib qofna maxay uusan bacda qaanuun takaaful ijtimaaci inay dowladda dadka kafaala qaadayso oo arrimaha bulshada ee dowladda xoogga saari jirtay oo cilmiga iyo daalibul cilmiga iyo shakhsi qofka shaqaysanaya kulli marka maxay kala habeyn jirtay waxaa taasna waxaa ku fahmaysaa tamaasukul usra islaamku suu u ilaaliyey qoysku u ilaaliyey dowladihii muslimiintana ee sidaas u ilaalin jireen sidaa ay u ilaalin jireen maantana taasoo kale loo baahaya maantana saasoo kale loo baahaya aabaha iska maqan oo ilmihiisa ka maqan aabaha ilmihiisa dayacay oo maxay ama jooga maqanaha ah ama faydakudirka waqti ku qaadana kulli waxaas oo dhan dowlad maanta qaanuun u samayso kan biilka ay ku dhibaya reerkiisa kan dhalinyarada guursanaysa dhaqaale ay u baahan yihiin wasaaradii waqaf kulli waxyaabaha dadka hadda maanta ummadda ka maqan gumaysiga u baabi'iyey dib in loo soo celiyo u baahan waxaa ka mid ah waxyaabihii bulshada lagu maareyn lahaa nidaam al-awqaaf fi islaam dhalinyarada tajwiid guurka jamaaciga ah oo shucuubta kale adduunka ummadaha adduunka ay isticmaalaan guurintooda ilaalinta gabdhaha kulli waxaas oo dhan waa wax dowlad ay qaban karto waa maanta dowlad ay qaban karto usradana ay ku badbaadi karto marka waa shay ku dayasho wanaagsan maqaalkaana waa manquul aan ka soo raray beejadka dowladda Cuthmaaniya taariikhdeeda lagu soo qoro wallahu a'lam